guurka wuxuu ku salaysan yahay sidiisaba riduu ku salaysan yahay waa in ninka gabadha guursanayana uu ku qanco gabadhu guursanayo saas daradeed baa nabigu ku yidhi soo fiiri ma iska fiirisay waa inuu ku qanco gabadhana ama haweenaydana cidda guursanaysa waa inay raalli ku noqoto sidaas daradeed baa nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam gabadhu hadday bikra tahayna idan baa la weydiin inay raalli tahay hadday garoob tahayna amar baa la weydiin waxay u kala duwan yihiin gabadhu way xishood badan tahay hebel ma lagu guuriyaa haddii la yidhaahdo inay aamustaa dhici karayso aamuskeedu waa oggolaanshagu nabigu sallallahu alayhi wasallam maadaama ay xishoonayso ama garoobtu hore bay wax u soo martay waa inay amar bixiso aamus laga yeeli maayo intaan bay ku kala duwan yihiin labadooda waxaa ka dhaxeeya guurku rido la'aan ma dhaco waa inay raalli ku yahay ruuxu cidduu guursanayo hadduusan raalli ku ahayn waalidkuma qasbi karaan laa aabbaan qasbi karin walaa cid kalean qasbi karin walaa hooyaan qasbi karin waalidku masalada la doonaya inuu fahmaa waxay tahay haddii ninkan aad gabadhaada u guurinayso aad adigu ku qanacday adigu xaas u noqon maysid adaa ku qancay soo maa adigu xaas u noqonaysa iyadaa xaas u noqonaysa ayadii haddayna ku qanacsanayn guri ayna ku qanacsanayn aad geyso seebaa gurigaas u dhisnaanaya sax maaha saas daraaddeed waalidku waa inuu tixgeliyo ilmaha iyo carruurta guurkooda inay raalli ku yihiin ciddii guursanaya sax talada ilmuhu gabadhu lama madax bannaanaan karto oo intay waalidkeed ka tillaabsato cidday doonto iskama guursan karto waalidkuna gabadha ma qasbi karaan oo ninayna rabin kuma qasbi karaan hadday yidhaahdaan ilaaba waa ku habaaraynaa habaar iyo duco qaado oo habaarka in la aqbalo soo ilaahay inuu aqbalo ma aha haddaad si khaldan ku habaarta lagaa yeeli maayo maanta dhan habaar oo lacnad haddaad rabto yaa kaa yeelaya waad khaldan tahay waalidku waa khaldan yahay sidaas daraaddeed waalidku waa inuu garto muxuu xaq u leeyahay oo ilmaha xaqa uu ku leeyahay muxuu yahay iyo muxuusan xaq u lahayn haddaad ilmihii ku maagtaba kula dagaalanto waxaadan gar iyo ku lahayn aadan ku saxsanayn adaa khaldan markaa waalidkaa u baahan in la qabto sidaas daraaddeed guurka gabdhaha la guurinayo waa in la tixgeliyo gabdhuhu cidday guursanayaan sax waalidku waa inuu ka fiiriyo diintiisa akhlaaqdiisa ma dhaqan karaa waa in laga baaraandego laakiin haddana waa in khiyaar la siiyo ay iyadu ku qanacdo haddayna ku qancin lama qasbi karo waalidku ma qasbi karo walaa aabbo walaa caqiirkii toona ma qasbi karo in la qasbana maaha in lagu habaaro lagu cadaadiyana maaha masaladaasi masale saxa ma ay aha hadday dhacdo oo waalidku yidhahda ilaaba guurso waad iska tanaasuli kartaayoo ducada waalidka intaad iska qaadato waad iska guursan kartaa laakiin waadna diidi kartaa haddaad diiddo habaar kugu dhici maayo sababto waxaa waa qaladba in lagugu habaaraaba qaladaba wallahu aclam